abbaara afartii galabnimo ee shalay ayaa magaalo ganacsiyeeda Wajaale waxa laga maqlay dhawaaq iyo jug aad u dheer kaasi oo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalo ganacsiyeeda Wajaale ay isugu soo ururtay halkaasi waxaana dadkii halkaasi gaadhay ugu tageen 3 nin oo halkaasi jooga isla markaasina mid kamidii uu dhaawac yahay waxaana dadkii halkaasi gaadheen ninkaasi dhaawaca u qaadeen dhinacaas isbitaalka magaalada Wajaale halkaas oo ciidamada ammaanka ee gobolka Gabiley ay ugu yimaadeen ninkaasi una qaadeen dhinacaas caasimadda Hargeysa halka dad goob joogayaala oo halkaasi ku sugnaa ay Saab TV u xaqiijiyeen in ninkaasi dhaawac ka ahaa lug iyo gacan ka go'day halka labadii nin ee kale ay baxsadeen waqti xaadirkan xogaha Saab TV helayo la sheegayo in labada nin ee kale ciidamada boolisku ay xabsiga u soo taxaameen sidoo kale waxa ciidamada ammaanku xabsiga iyagana u taxaabeen dadkii nimankaasi guriga ka kireeyay haddaba walxaha keenay dhawaaqan iyo tugtani ayaa la sheegay kadib markii 3 nin ay isku xidhxidhayeen walxooyin loo maleeyay inay ahaayeen miinooyin isla markaasna ay si qaldan isugu xidheen sidaasina uu qarax u sameeyay shaygaasi sidoo kale xogaha uu Saab TV helayo ayaa sheegaya in jugtan iyo dhawaaqan ay sababtay kadib markii macdan la isku shiilshiilayay ay qaraxday walow ilaa imika aan lahayn xogo dhaba oo tibaaxaya sida wax u dhaceen ayaa Saab TV oo isku dayay inuu helo xogo dheeraada waxa uu la xiriiray laamaha ammaanka ee gobolka Gabiley iyo maamulka gobolka kuwaas oo iyagu ka gaabsaday inay wax tafaasiir ka bixiyaan arrinkaasi si kastaba ahaatee dhawaaqan iyo tugtan ka soo yeedhay mid kamid ah guryaha magaalada Wajaale ayaan ilaa haatan si dhaba loo ogeyn waxa ka dambeeyay laamaha ammaanka iyo maamulka gobolkuna wax tafaasiir kama soo saarin waqti xaadirkani waxaana laga dhur sugayaa waxa laamaha ammaanku ka soo saaraan Guuleed Ali Ibrahim